السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بضا فرحت بان idin rajaynaya. ninkan waa nin xaasla wuxuu yiri markaan xaaskayga u tago ee ay xaajadeeda aanu kala gudano ay biyuhu iga yimaadaan waxaan dareemaa dhuuxa lafuhu inuu xanuunayo lafa xanuun gaar ahaan meelaha laabatooyinka ayaan aad xanuun uga dareemaa. waxa kale oo aan aad iskugu arkay inaan daalayo oo tamartaydu ay aad hoos ugu dhacayso. qudaarta qaar ka mida waan isticmaalay, kaaroodka waan isticmaalay, sidoo kale liinta waan isticmaalay. welina waxaan u baahanahay qudaar ii xoojisa oo aan ka heli karo faytamiinaadka u fiican lafaha iyo qudaarta u fiican lafaha. aad buu mahadsan yahay. dabcan wuxuu ina soo weydiinayaa qudaar u wanaagsan lafaha. haddaynu nimaadno taladiisa, kaaroodka noociisa curdinka ee jilicsan ee aan gahaydhka ahayn waxa uu fiican yahay caafimaadka lafaha. waxaa laga helaa faytamiin A, beta carotene iyo sidoo kale calcium iyo faytamiin K. intaasiba waxay u wanaagsan yihiin lafaha, gaar ahaan calciumta iyo faytamiin K. haddaba sida inta badan loo isticmaalayo ayaa aad u muhiima. faytamiinkaas bulshadeenu waxay aad ugu taqaanaa dhinaca indhaha, ama dadku markay indhuhu loo qaato oo indhuhu ay xanuunaan ama aragga indhuhu daciifo. sidoo kale aragga indhahana waa u fiican yahay maadaama uu faytamiin A uu xambaarsan yahay ama sourceska ugu weyn ee kaaroodku laga helo uu yahay. sidoo kale calciumta iyo faytamiin K oo iyaguna caafimaadka lafaha aad ugu muhiima ayaa ku jira xaddi ay kaga jirtaa. haddaba waxaynu sheegaynaa walaalkan inuu qaato oo uu isticmaalo. qaabka uu qaadanayaana waa 3 qaybood uun: inuu cabitaan ka dhigto noociisa jilicsan, iyo sidoo kale inuu caadi u cuno laakiin uu si fiican iskaga maydho, diirka sarena uu ka dhilo oo isagoo markaas aan wax dhibaato lahayn uu isticmaalo. waxa kale uu qaadan karaa qudaarta inuu ku googoosto sida saladhka iyo basasha iyo kuwa inuu ku googoosto. waa loo qaadan karaa in cuntada uu ku darsado, laakiin 3 muhiima: inuu qudaarta ku googoosto, inuu sidiisa u cuno, iyo inuu cabitaan ka dhigto. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. ila sii wadaaga bulshadeena kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.